guddoonka golaha shacabka iyo madaxweynayaashii hore ee dalka xasan sheekh shariif sheekh axmed ayaa xalay kulan waqti badan qaatay ku yeeshay magaalada muqdisho. qoraal ay soo saareen xubnaha madasha xisbiyada qaranna waxaa lagu sheegay in lama huraan ay tahay in doorashada dalka waqtigeeda ay ku qabsoonto. madasha xisbiyada qaran ayaa mowqifkooda la xiriira doorashada dalka u cadeeyay guddoonka golaha shacabka, waxayna sheegeen in lama huraan ay tahay in doorashada lagu qabto waqtigii lagu ballamay. guddoonka golaha shacabka ee ugu horeeya gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude ayaa kulan la yeeshay xalay hogaanka madasha xisbiyada qaran ee madaxweynayaashii hore dalka Xasan Sheekh Shariif Sheekh Axmed. kulankan ayaa waxaa looga hadlayay arrimo ay ka mid yihiin sidii loo maareyn lahaa xaalada kala guurka ee dalka uu maraya, qabsoomidda doorasho ku dhacda waqtigii loogu talagalay. kulankan oo ahaa mid albaabado xirnaa ayaa dhammaanba saddexda hogaamiye ay ku gorfeynayeen xaalada siyaasadeed iyo midda doorasho isbedeladii dhowaan dhacay. kulankan oo ka duwanaa marka loo eego kulamadii hore ee guddoonka golaha shacabka ee la yeelanayeen madaxweynayaashii hore dalka ayaa u muuqday mid dareen siyaasadeed xambaarsan, maadaama kulankan la sheegay in uu markii hore uu ka yimid labada gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa, kuwaasoo si qaas ah u dalbaday inay la kulmaan labada hogaamiye Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed. waxaana guddoonku sheegay in lama huraan ay tahay waa xubnaha madasha xisbiyada qaran ayaa guddoonka hordhigay in lama huraan ay tahay in waqtigan adag doorashada ay ku dhacdo waqtigii lagu ballamay aan la yeeli doonin wax muddo kordhina. guddoonka golaha shacabka ayaa ina dhankooda la wadaagay madasha xisbiyada qaran ilaa hadda xogaha ahna oo sheegaya in lama huraan ay tahay in xaalada adag ee kala guurka ee dalka uu ku jiro in la eego xasiloonida siyaasadeed ee dalka lagana shaqeeyo sidii doorasho waqtigeeda ku dhacda. hogaanka madasha xisbiyada qaran ayaa iyo guddoonka golaha shacabka ayaa isku raacay in laga fogaado wax walba oo dalka marxalado wax walba oo keeni kara deganaansho la-aan dalkana u horseedi kara qalalaaso siyaasadeed, maadaama gabaabsi uu yahay waqtiga hay'adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya. waxaana madasha xisbiyada qaran ee cadeeyeen guddoonka golaha shacabka inaan la aqbali doonin wax muddo kordhin ah oo loo sameeyo hay'adaha dastuuriga ah ee dowladda, haddana laga shaqeeyo qabsoomidda doorashadii lagu ballamay. sida la wada ogyahay baa muddo xileedka hay'adaha dowladda federaalka Soomaaliya waa 4 sano, wuxuuna marayaa dhammaad, waxaana la joogaa xilligii doorasho loo diyaargaroobi lahaa. mana muuqato hogaanka talada haya dalka inay u diyaargaroobeen qabsoomidda doorasho waqtigeeda ku dhacda. sidaas darteed madasha xisbiyada qaran waxay cid kasta dareynaysaa dalka iyo weliba cid kasta ay dareynayaan dhammaanba in doorashada ay ku dhacdo waqtigii lagu talagalay, lagana shaqeeyo qaabka ay suurtagal ku noqon lahayd doorasho ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madasha xisbiyada qaran. doorashadaas oo waafaqsan dastuurka. madasha xisbiyada qaran waxay u arkaan in lama huraan ay tahay in doorasho la wada ogol yahay, heshiisna laga wadahay la qabto waqtigii lagu ballamay xaalada kala guurka aanan la aqbali doonin wax walba oo muddo kordhina, taas oo sheegay in ay keeni karto qalalaaso siyaasadeed. gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa koowaad Muude ayaa 3 mar sidaan oo kale la kulmay madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Shariif Sheekh Axmed. waxaase la sheegaya kulankii xalay ka dhacay hoyga madasha xisbiyada qaran uu yahay mid ka duwan marka loo eego kulmadii hore, maadaama dhiilo siyaasadeed uu xambaarsanaa. haddaba dhinaca kale Dr. Xasan Sheekh falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa wax ka weydiinay haddii muddo kordhin loo sameeyo dowladda Soomaaliya maxaa dhici kara. asal aana baad maqashay madaxweyne Farmaajo qof iyaan aan dalkan doorasho aan ka qabaha macnaheedu ay ka dhigan tahay waqtiga lagu daro. marka ma garanayo ama uma malaynayo hadda in laga yeeri doono waqtiga loogu daro sababta waxa lagu dirayo bajiriba sababta hadda wax qabanahay oo dhigay xataa walaha iga qabya sida Xasan Sheekh xataa Allah ka dhigay Xasan Sheekh ayibid oo dhaa qabya walaha iga qabya aan qabya dhameystir waa laga diiday. Farmaajo qabya xataa ma haysto qabya oo dhameystir xataa ma haysto. marka golaha shacbiga midba soo shaqeeyay qabyan keenay qabya aan dhameystir waa laga diiday. niman qabya xataa haysan saaloogu sawma isaga jooga ama shaqada meesha guri dhaxal ma amalaysa meesha waa gurigan shaqo milyan Soomaali ka dhaxeeya dadka Soomaaliyeed lagu talagalay in loogu adeego, naftooda lagu ilaaliyo, maalkooda lagu ilaaliyo, sharaftooda lagu ilaaliyo.
nin iska dhex fadhiya dadka Soomaali dadka Soomaali meeshaas waxay rabaan nin ka shaqeeyo dadka Soomaali u shaqeeye nin meel iska fadhiya banis qof Soomaali danka ma lehne wadaadkan waqtigiisa u dhamaado bidda Febraayo aduu gaaro meeshuu aado ama Soomaaliya aado ama baafal ajuga ama baafal aado ama qadar meeshuu aadi ummadda inuu ka horwariga waayo ummaduna ay muddo u darato dastuurkaas yarka ahaa lagu talagalay in lagu wardiyo qodobka 6aad wuxuu qabaa golaha shacbigu waa 1 term qodobka 9 in yaa umaleeyahay madaxweynuhu waa 1 term waana 4 sanadood haday dhamaatana waa inay baxaan waana in kuwa kale la soo doorto saasaa nabadda ku jirtaa mid iska joogi karana ma jiro marka waxaas loo baahan wasaarada noocee aslada Soomaaliya waqtigan uu ku haboon yahay soo ugu dambeysay dabcan hadee ra'iisul wasaaraha fiican lama arkayo sababtoo ay tahay waxaa la rabaa ra'iisul wasaaraha fiican qofkii soo dooran in marka hore la helo maahano marka hore qofkii soo dooranay ra'iisul wasaare fiican in la helo loo baahan marka qofkii ma hayno marka waxaan sugaynaa mid adigu iska macmalaho iska wax weyn aan soo kordhino dhibaatada inay sii kororto maadaama asal ahaan meeshaba lama ogola dad wax yaqaan ama kartile ama wax qaba kara lama rabe yaa aniga ila shaqeynaa yaa aniga ii guuleynaa yaa aniga ila sacbinaa yaa iga hor imaaneen yaa wixiga ii fulihayo wax saas le amala la hada san qiyaasay nuubi hadda lama dhahayo yaa kartile yaa waxa fahmi kara yaa fikir abuur kara yaa shaqadan qaba kara yaa yeeli kara dhibaatada yaa ka saari kara in la dhahayo hadda mataqaana uma malaynayo ay isaga badan tahay wax uu adigu u eg yaa aniga dhigaysahay yaa aniga taada iga dhigaysanay wax saas oo iska masaakiin amal waaye دكتور حسن شق عليه oo falqaya arrimaha siyaasadda oo la hadlayo kaasi ah wax ka weydiinayna siyaasadda iyo wasaarada noocee ay Soomaaliya waqtigan u baahantay wareysigan oo dhameystirase bartina gaarka ee Facebook ayaad ka daawan doontaan madaxweynaha Puntland wuxuu amar ku bixiyay in la toogto cid walba oo ka soo horjeestay maamulkiisa carqaladeysan dhanka amniga Jakarta ayaa dhameystiray madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Said Abdullahi Dani ayaa sheegay in marnaba aysan ogolaan doonin in deegaanada Puntland laga dhex sameeyo qalaasi waliba waxyaabo keeni kara amni darro waxa uu sheegay in cid alaalaha cidii diidan nabadda in talaabo ay ka qaadi doonaan waxa uuna amray ciidamada dowlad goboleedka Puntland inay toogtaan cid kasta oo ka soo horjeeda maamulka Puntland isla markaana aysan maxkamad la sugin madaxweyne Dani oo sii hadlayay waxa uu sheegay in cawdaga Puntland uu wajiyo fara badan leeyahay hayeeshee uu rajeynayo in cid kasta oo hubeysan oo ku jirta faldambiyeed in la toogo doono talaabana ay ka qaadi doonaan ciidamada kala duwan ee dowlad goboleedka Puntland in cidii diida baaqeenaas wax arxan aan loo gelin ma qarsanayno waxaan farayaa ciidamada Puntland meel kasta ay joogaan wixii bulshadan cadow ku ah goobta ku aragtaan ku toogta maxkamada la sugmay maxaa yeelay cadowga hadda jira wajiyo badan buu yeeshay waxaan rajaynayaa cadowgaas in lagu dhiirado cid kasta oo faldambiyeed ku jirta oo hubeysan oo wax fulinaysa goobteeda lagu toogto hadalka madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Said Abdullahi Dani ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli mararka qaar deegaanada maamulkaas ay ka dhacaan dagaal beeleed iyo weeraro iyo dilal ay mas'uuliyadooda sheegtaan al-shabaab iyo Daesh oo marar qaarkood weerar ka fuliya deegaanada kala duwan ee dowlad goboleedka Puntland waxa uu Dani sheegay in cid kasta oo ku hoolan falal amni darro ay ciidamada maamulka Puntland amar u qabaan in ay toogtaan iyadoo aan la geenin wax maxkamad ah baarlamaanka Soomaaliya maanta Arbaca ayaa la filayaa in la horgeeyo sharciga batroolka dalka kaas wax ka bedel lagu sameeyo markale baarlamaanku ay ka doodi doonaan xildhibaanada golaha shacabka ayaa lagu wadaa maanta in aqrinta koobaad wax ka bedelka sharciga batroolka ay marsiyaan kulankan oo kamid ah kulamada maanta ka dhacaya xarunta Villa Hargeysa ee dood adag ka yeelan doonaan dib u eegista sidoo kale waxa dood adag laga yeelan doonaa dib u eegista miisaaniyadda dawladda ee 2020 golaha wasiirada ayaa 31 bishii Oktoobar ee sanadkii tagay 2019 cod aqlabiyad leh waxay ku meelmariyeen ku talagalka miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2020 oo dhan 469.5 milyan oo dollarka Mareykanka kororka ku yimid miisaaniyadda dawladda 2020 badankood
waxaa la sheegay in mushaarka loo kordhin doono ciidanka qalabka sida oo askari walba uu qaadan doono mushaar dhan 200 bil walba. kulanka golaha shacabka oo maanta ayaa lagu wadaana miisaaniyadda iyo wax ka bedelka sharciga batroolka inay ku yeeshaan. Mareykanka waxa uu qirtay in dad rayid uu ku laayay jilib sayashay intaanan eegin dabeelo badan ayaa cabsida la xiriirta duufaano iyo dabeelo xooggan oo marka laga cabsi qabo inay ku dhuftaan dhulka xeebaha Soomaaliya. xilli shalay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya sheegtay in dabeelaha ku dhuftay dhulka xeebaha dhaca ee qayb ka tahay Muqdisho marka gobolka Jubbada Hoose meelo kamid ah dhammaanba la sheegay in ilaa hadda la yahay doomo iyo kalluumaysiyaal waa dad badan oo kalluumaysata. hase yeeshee cabsida ayaa u muuqata mid sii kordhaysa. qaar ka mid ah kalluumaysatada magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in cabsi weyn ay soo wajahday kadib markii dad badan oo saaxiibadooda ay badda ay ku waayeen, haddana mar kale ay ka cabsi qabaan duufaano xooggan oo dabeelo wata ay ku dhuftaan xeebaha Soomaaliya, taasoo ay sheegeen in aysan suurtagal noqon karin in badda loo shaqo tago. badii maanta waxaan aad iyo aad waan arki jirnay xiliyo badan oo bad xireen la dhahayo sida bisha 5aad ilaa bisha 6aad ilaa bisha 7aad ilaa bisha 8aad bad xireen inay dhacdo waa arki jirnay, waa shaqaysan jirnay, xiliyaa jirtay sacadooyin aan ka shaqaysaneen. laakiin xilligan waxa u dareemaysaa in roobabkeeda ay aad u badan yihiin iyo dabeelaheeda aad ay u badan yihiin sida bishan oo kale oo hadda taariikhda ay marayso 27 bisha ilaa 27 beri maalinba waxaa dhacaysa inay doon ay gadoonto, qof ku dhinto, qof ku dhaawacmo, hantidii la waayo. marka saameyn badan ay ugu yeelato caaqibado badan. haddeertaan aan kula hadlaayo 4 doomood hadda kiboodkan aan u gashtay inaan gurmad u aadno mana soo geli karaan, biyihii koreyna jiraan, meel ay ka soo galaan male. meesha hal albaab noo furnaa jirtay, halka albaab noo furan waa xirantay, aad iyo aad u xirantay. intaasna waxaa u sabab ah dabeelihii hadda nagu soo zaa'iday. marka dabeelada aniga aan ku arki jirnay wili ma arkin intaan badda aan ka joogno oo badda aan ka cabsana ma ka arkin ilaa bishaan dhacdeeda aad iyo aad aan u cabsanaa. raggana la shaqeynaa, rag aan naqaan iyo waxaan naqaaninba waa ku dhinteen, waa ku laayeen, waa la gidiyey. rag miid rag iyagoo nafle caari ah inay banaanka ay soo koraan, nin miid la helo waxaan dhan ma arki jirin. wasaaradda gargaarka ee maareynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya oo wasiirku ka yahay Xamza Saciid Xamza ayaa shalay sheegay in khasaare nafeed iyo mid hantiyeedba ay geystay mowjado dabeelo wata oo ku dhuftay qaybo ka mid ah xeebaha dalka Soomaaliya. meelaha ugu badan ee wasiirku shalay uu sheegay waxaa ka mid ah xeebaha Muqdisho, tan marka iyo Jubbada Hoose meelo ka mid ah oo dhammaanba dabeelo xooggan ay ku dhufteen, halkaasoo la sheegay in la la'yahay dad badan oo kalluumaysato u badnaa. Shabeellaha Hoose waxaa jirta doon kasoo baxday deegaanka Jasiira kuna wajahnaday magaalada Marka, waxaana saarnaa dad ku dhow ilaa 18 qof. 7 ka mid ayaa lasoo badbaadiyay, inta kale weli waa la baadigoobayaa oo nolol iyo geeri midkoodna laguma hayo. sidoo kale waxaa jira dad badan oo kalluumaysata kuwaasoo xeebaha Muqdisho ayna ka baxay oo kalluumaysi gudaha badda u aaday, qaarkoodna weli la la'yahay. Shabeellaha Hoose haddii aan eegno gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Najaxna waxa uu sheegay in mar kale ay muujinayaan cabsi ku saabsan in cabsi ku aadan in webiga Shabeelle fatahaad horle uu ka sameeyo Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Afgooye in waaxigeeda. gudoomiye Najax waxa uu sheegay in dadkii ka barakacay degmada Afgooye in ilaa hadda aysan helin gurmadkii loo baahnaa, asagoo mar kale qeyladaan u jeediyay dowladda Soomaaliya maamulka uu ka tirsan yahay ee koonfur galbeed hay'adaha samafalka in dadkan dhibaatada ay saameysay gurmad la soo gaaro. sidaan horey u sheegnay gargaarkan waa wajigii labaad runtii aan gaarsiinayno shacabkeenii Soomaaliyeed, shacabka degmada Afgooye kuwii ay saameysay fatahaadii uu sameeyay webiga Shabeelle. waxaana ka faa'iideysanayaa maalintii labaad 1000 qoys oo kale. waxaan ugu talagalnay dadka sida tooska ah ay u saameysay fatahaada guryahoodii biyaha ku jira. waxaan u sameynay xaafad walba oo fatahaadan ay saameysay guddi odayaal ah oo maawdiin leh oo soo xula dadka rasmiga ah, iyadoo ay maamulka degmadana ay kaalin weyn ay ka qaadanayaan. sidaad arkaysaan dadkan waa dad weli guryahoodii ka maqan,
cid gurigeeda ku soo laabatay weli ma jirto waxay dulsaar ku yihiin dad kale ee Soomaaliyeed oo degmadan degan sababtan waxay tahay weli guriyihii ayaa ku jira biyihii waad arkaysaan webiga weli biyo xoog leh ayuu wadaa waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan baaq u diro cid allaale ciddii diyaar u ah inay kaalin ka qaadato ama gargaarkan qayb ka noqoto inay soo gaaraan ay soo gaarsiyaan shacabkan degmada Afgooye maamulka degmada iyo gobolkan waxay diyaar u yihiin inay ka kaalmeeyaan cid walbaba in dadka rasmiga ah ee ay fatahaadu saameysay inay gargaarka runtii ay gaarto ugu dambeynna Mareykanka ayaa qiirtay in dad rayid ah uu ku dilay duqeymo ka dhacay gudaha wadanka Soomaaliya taliska ciidamada Mareykanka ee ka howlgalaya qaaradda Afrika Africom ayaa soo saaray warbixin ku saabsan khasaaraha dadka rayidka ee ka soo gaaray duqeymaha bartilmaameedka uu Mareykanku ka geysanayo gobolada Soomaaliya Africom waxa ay qirtay in duqeymo ay ka geysteen ciidamadooda nawaaxiga deegaanka waa degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe 2 bishii February ee sanadka 2020 ay ku dhinteen hal ruux oo rayid ah iyo 3 kale oo dhaawacyo ay soo gaareen nasiib darro waxaan rumaysanahay in howlgalkeena uu ka dhashay dhimasho hal ruux oo rayid ah iyo 3 kale oo dhaawac ah kuwaas oo ah dad aan yoolkeen ahayn inaan dilno ayuu yiri taliyaha ciidanka Mareykanka ee Africom waxaan ku dadaali doonaa sidii aan kaga hortagi lahayn howlgalada lagu doonayo in lagu soo celiyo xasiloonida amniga ee dalka Soomaaliya inaysan waxyeelo dambe soo gaarin dadka rayidka ah ayuu yiri sarkaalkan hore iyo ciidamada Mareykanka Africom waxa ay qirteen in 2 ruux oo rayid ah ay ku dileen dalka Soomaaliya bishii Abriil 3 kalena ay ku dhaawacmeen horaantii sanadkii 2019 Mareykanka ayaa howlgalka duqeynta xagga cirka waxa uu ka wadaa dhowrkii sane ee la soo dhaafay deegaano kamid ah koonfurta ee bartamaha Soomaaliya iyadoo duqeymaha lala beegsanayo kooxaha ka soo horjeeda dawladda ee Al-Shabaab iyo Daesh warkiina waa nageynta